waxaa jira waxa la yidhaahdo mental models ama hanaan fikradeedyo inaga caawiya inaan fahanno sida adduunku u shaqeeyo ama aan u falanqeyno macluumaadka ugana badbaadno khaladaadka maalinlaha ah. Waxaana loo isticmaali karaa qaybaha kala duwan ee cilmiga sida kasmanafeedka, dhaqaalaha, maamulka, cilmiga bulshada, aragtida go'aan qaadashada iyo xataa falsafada. Mental modelskaas kuwaan ugu jeclahay mid kamid waxaa la yidhaahdaa Halanes Fraser. Qof ayaad wacday marar badan ama fariin baad u dirtay, wuu arkay laakiin kaagama jawaabin. Qof baa goobta shaqada adigoo jooga kugu qayliyey, qof baa seedkii wadada aad maraysay gaariga kugu hor istaajiyey ama kugu horgooyey. Tusaalayaashu way badan yihiin, laakiin dhacdooyinka noocaas oo kale marka aad la kulanto ma waxay u qaadataa in adiga lagugu talagalay soo isla markiiba kuguma soo dhaco male aan wanaagsanayn. Hanaan fikradeedka halnan meesha looga baahan yahay waa halka haddaba. Si fudud haddii loo sheego wuxuu ku dhahayaa weligaa ha u qaadan dadku in ay dhibayaan ama ay kugu talagalayaan inay ku dhibaateeyaan adoo heli kara sharaxaad ka fiican oo aad ka bixin karto ficiladooda sida aqoon darro, dayac aan lagu talagelin ama ka fiirsi la'aan ku timid xaalad nafsi ah oo uu qofkaasi ku sugan yahay. Mental modelkan ama hanaan fikradeedka waxaan ka baran karnaa dhibaatooyinka iyo khaladaadka dadka ka dhex dhaca in badan oo ka mid ah kuma salaysna qorshe shaydaannimo ah oo laga baarandegay. Waa uun khaladaad dhacay oo iska caadiya. Sidoo kale dadka badi inoogama fikirayaan sida aan moodayno ama aan u haysano inay nooga fikirayaan. Qof walba tiisa iska haysta. dadka inaan siino malo wanaagsan waxay ka hortagi kartaa caro, xanaaq iyo isku dhacyo laga baaqsan karin. Haddaba marka xigta uu qof sameeyo ficil ku caro geliya ama kaa xanaajiya inta aadan waxba samaynin isweydii niyad xumo ayay ka tahay mise waa qalad caadi oo ka dhacay. Su-aashaas kaliya waxay badbaadin kartaa xiriiro badan, kuwo asxaab, kuwo qaraabo, kuwo qoys iyo wixii la mid ah. Waxay kaa baajin kartaa isku buuq ama stress, waxayna adduun araggaaga u bedeli kartaa mid la fahmi karo. Mid jira mental model ama hanaan fikradeed adiga nolol maalmeedkaaga wax ka tahay. Ila wadaag.